كواد إعلان برشة لسعد وناكسن أصحابي سودو هذا السلام عليكم وايدين سلامة أصحابتي دمان ما أنتم حاسة سننا إعلان مركا إعلان كإنا برتيد أربتدكو وإنا سوق تابع هي مقص خيج هذا ويا كبقيننا هي جنتة هذا وحاسة سننا بعد أيا سننا بعد سيدان أيا لو سمايا مركو هوري بعد باسدا سوق هذا نيسا أفكا كجريسا check ka siinaysaa sakiin maqas waxaysatid waa ku jari kartaa haddana waxaa soo qaadanaya afka kale ayaa ka jaraysaa afood ayaa ka jaraysaa markii aad ka jartid bacda waa isla simaysaa haddii aad rabtid waa yareysan kartaa oo dhexda waa ka jari kartaa oo bacdeer aad rabin almuhiim bacda waa inaa labada af oo hore aad ka jartaa kadibna aad ka jartaa meesha ay ka leedahay bacda xarqaanka ay ka leedahay ayaa ka jaraysaa siman ayaa u jaraysaa bacda marka cilaanka aan baranayno waa inaa bac samaysanaa koow bacda markaa samaysano ma aha inaa cilaan ku shubanaa sababto cilaan gacmo kaaga halaabaya si baraatig ah waa inaa u samaysaa cilaanka waa inaa bacda kareen ku shubataa hadda bacda ayaa duubeynaa bacda waa inaa si degan u duubtaa si sokorta warqada markii lagu shubaa kale loo duubo kale ayaa bacda u duubeysaa bacda markaa duubatid si fiican ay u duubay bacda waxaa isku dayay inaysaa ka bixin xadkaaga adiga celin kartid ayaa isku dayay si fiican ayaa u duubanaysaa bacda afkeeda waa yareysanaysaa adi afkaa rabtid markaas aa ka qiyaas ahaan sida adi aa rabtid aa ka dhiganaysaa bacda markaas sida aa rabtid ayaa bacda uga dhiganaysaa bacdii waxaa soo qaadanaysaa jantiya ayaa soo qaadanaysaa aa haysay bacda ayaa afka ka sharooteynaysaa markii aad sidaas ugu gubaysid waa inaad dabka xoogaa ka sikisaa inaad ka ilaalisid waaye haddii kale bac waaye waxaan jurub ee kaa dhehaysaa marka waa inaa ilaalisaa adoo ilaalinayo bacdiina afkeeda samaysanayo waa inaad si tartiib aa ugu samaysaa hadda bacdeeni waa samaysanay kareemkaa soo qaaday nooca rabtid kareenaa soo qaadan kartaa anikan ayaa hadda nigu tusaaya bacdeen waa tana oo noo samaysan waxaa ku shubanaynaa kareenka markaa ku shubatid si tartiib ah ayaa ugu shubanaysaa gudaha kareemka waxaa ku sameynaysaa cilaanka baraatika markii aad qoratid cilaanka ayaa ku sameynaysaa bacda afkeeda waa inaa iska laabtaa oo iska xirtaa haddii kale maanta oo dhan afkaasay kasoo daadaadanay markii aad sidaan u riixdid oo kale cilaan hataa hadday saaraysid waa inaa afka iska xirtaa ama bac ku xir ama laastig ama mara ama sharooto wax waa inaa bac isaga xirtaa aan had sharooto miyaag dhawo marana miyaag dhawo bacdan ayaan jab yar ka goosanaya ku xiraaya adi waxa ka agdhow waa ku xiran kartaa muhiimada waxay tahay waa inaa bac samaysataa kareen ku shubataa si aa u bilowdid cilaan barashada waa inaa soo qaadataa qalin iyo warqad ama qalin iyo buug aa soo qaadataa bacdeeni waa diyaarsana waynoo shaqeynaysaa sida u jeedaan waa inaa soo qaadan markaas kadib waa inaa soo qaadanaa qalin iyo warqad ama qalin iyo buug sidii markaas aa ugu diyaar garoobi lahayn sidaanoo kale waa inaa u qorataa waa ubaxyo iyo flower yaryar oo aniga aan sameeyey waaye adigana waa sidaan inaa u diyaarsataa oo kadib aa gacantaada ku baraatikeysaa wax walbo baraatik ayay u baahan yihiin wax walbana waa gacan ku hayn kareemkan wuxuu kaaga fududeynayaa sidii aa u baraatikeen lahayd ama aa ugu xooji lahayd gacantaada sidii ay gacanta awood u yeersan mar walba qalinka iyo warqada waa kuu diyaarsanaadaan marka u diyaar garooba barashadii cashirkii koowaad cilaanka hadda waxaa noo diyaarsan naqshadii sidaa uu samey leedeen ayaan ii sheegaya waa inaa warqada marka hore cashirka markaas buurada aa ka fiirsanaysid waa inaa qortaa qalin iyo buug ama warqad aa qaataa oo sidaan camal aa u qortaa aani u diyaariyo kale sidaan ayaad u qoranaysaa markaa sidaan u qoratid oo kuu diyaarsan yahay hadhowto waa fiirsanaysaa kareemkii aad diyaarsatay ayaa ku baraatikeynaysaa marka sidaan iila socda waa inaad diyaarsateen aan u maleynaya hadda cashirka ayaa noo bilowday wuxuu ka bilaabanayaa cilaanka sidiisaba wuxuu ka bilowdaa waxyaabo badan ayuu ka bilowdaa laakiin muhiimada waxay tahay oo ka bilowdo dhibic iyo oodaas iyo maxay tahay canjeerada saddexdaas ayaa u muhiim ah iyo ulana wuu ka kooban yahay ulashana cilaanka way qurxiyaan mar walbo oo flower hadduu u lahayn ma quruxsamaayo canjeerada sidaan ayaa loo wareejiyaa dadka dhowr nooc ayay u wareejiyaan naqshadan kalena waa loo wareejiyaa marna gudaha ayaa ka bilaabi kartaa marna banaanka ayaa ka bilaabin kartaa sidii markaas kuula fududaato ayaa u wareejin kartaa
waa muhiimada inaad deganaatid oo waxaa qoraysid aa u fiirsatid. marka aad si degan u qoraysid casharku wuu kuu qurux badnaanaya, cilaankana wuu kuu qurux badnaanaya. Seen beri markaa cilaan saaraysid waa inaad deganaataa. hal oo aa wareejisay oo kala kor saaray waa ujeedaa. haddana xariiqtima sidaas korka uga saaray, haddana tii kale meeshii ay ku dhamaatay ayaa haddana ta kale ka bilaabay. 4 xabo isi saaran. haddii aad rabtid sidaan open waa uga dhigan kartaa oo ma buuxinaysid ayadoo faaruq ah waa ka dhigan kartaa. 3 dhibcood geeska ka saaraysaa, geeska kale oo ku aadkiisana waxaa saaraysaa 3 kale. haddii aad rabtid dhibic kaliya waa saaran kartaa, laakiin markii 3 saartid flowerku wuu isi soo bilaay. haddii labada gees oo kale dhibic ayaa saaray. haddii aad rabtid ma buuxinaysid oo adoo buuxin faaruq oo ku ahaan karaa. haddii aad buuxisidna qurux ayuu noqonaa. dadka badanaa ma jecla buuxis, dadna waxay jecel yihiin buuxis, dadna faaruq ayay jecel yihiin, isku mid maaha. marka labada naqshad waa inaad barataa, marna aad buuxi kartid marna aad faaruq dhigan kartid. haddana hadda waxaa wareejinayaa canjeeradii, waxaan kor saarayaa haddana sagsagtimo yariis oo saan usoo noqonaya. sagsagtimahan aad ayay u fudud yihiin, waa kuwa u horeeya oo la barto markii cilaanka la baranayo. naqshadan naqshado kale haddii kor saartid ama ayada aad isku soo laba celcelisid ma aha naqshad isdiideyso. insha Allah waa arki doontiin, casharada soo socda ayaa ku baran doontiin. marka waa inaa markaa sameynaysid aad si deganaan u sameynaysid. seen beri waxaa ka awaaninayaa markaa cashir aad qoranaysid waa inaa si deganaan u qorataa. haddana waxaan sameynayaa isla oodii ayaan soo qaatay xagga noo tiilay, waxaan kaloo soo qaatay dhibicdii dhexda ayaan ka saaray. haddana korka ayaan waxaa saas oo kale oo korkor ah oo hoos ka furan ayaan saaray. meeshaan kale sidii ay naqshad ugu ekaato mid ayaan horay u dheereeyay. waa kaasi haddii aad rabtid faaruq ayaan ka dhigan kartaa, faaruqa buu ku qurux badan yahay. laakiin ani dhibic ayaa geliyay. aniga waxaan ka mid ahay dadka aan faaruqa jecleen, ma jecli cilaan banaan, waxaan jeclaa cilaankiina wax lee ku dhex jiro. marka hadeertaan sidaas quruxda badan ayay noogu soo baxday maanta, maadaama aan igu daahiyay bac sameyskii maxay ahayd marabi inaa cashirkana niga badiyo. halahan waa inaa soo xijisaan insha Allah asxaabteeda. mar walba waxaan ii soo geli doonaa cilaamo faashino aad u qurux badan oo kala duwan ayaan ii soo geli doonaa. sidaan ayay noo yihiin cilaanka aad u jeedid. cilaanka asaga naqshado badan wuu isi bedelayaa. waa macallimadiinii foosladan. barasho wanaagsan asxaabteeda, hala soo dhawaado. waxaan jeclahay intii aan aqaano inaan ina wadaago oo wax niga baro. waxaan jeclahay gabdhaha walaalahayga kale inay faa'iideystaan. cilaanka aad ayuu muhiim u yahay in la barto, wuu fiican yahay 3 siyaaboba wuu u fiican yahay, oo faa'iido ayuu leeyahay. 3 faa'iido ayuu leeyahay. ta koowaad adiga ayaa nafsadaada ku quruxsanaya, ta labaad walaasha ayaa ku quruxsan kartaa iyo gabadhaada, ta saddexaadna waa shaqo aad ku shaqaysan kartid oo xirfad aad taqaanid waaye, oo keedku ah oo adiga aa leedahay waaye, waa maskaxdaada ku jirto waaye oo mar walba wax ku qabsatid. canjeeradan aa ujeediin oo 3 xabo ah is saaray, farta ayaa la saara karaa asagana hala barto. asxaabi waa mahadsantihiin dhammaantiin. asxaabta hore iila joogtay aad ayaa asxaabta cusub waxaa leeyahay soo dhawaada. like, share, comment, subscribe waa xagiina. wixii tale iyo tusaale waa ila soo wadaagi kartiin. waana mahadsantihiin dhammaantiin. assalaamu calaykum.